Ibas, ibas, Roniga aniga na ibas. Ibas, kubada aniga na ibas. salaamullaahi calaykum daawadayaal kulan wacan oo wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan xubin gaar ah oo aan ku eegayo xidhiga suuqa kala iibsiga mashquulinaya ee lagu magacaabo Dayot Upamecano. laacibkan ayaan eegaynaa kooxda uu mudan yahay inuu ku biro hanaan ciyaareedkiisa iyo weliba guud ahaan sida looga faa'iideysan karo. xiddigani lagu magacaabo Upamecano waa 21 sano jir u dhashay wadanka Faransiiska. waxa uu noo ciyaaraa kooxda lagu magacaabo Leipzig. waxa uu soo bandhigayaa hanaan ciyaareed aad u wacan. dhowr koox waxay baadigoobayeen tan iyo sanadkii lasoo dhaafay. marka la eego daafacani waa xiddig da'yar isla markaana dhowr boos looga faa'iideysan karo. dabcan kooxaha sida weyn u baadigoobaya waxaa ka mid ah Arsenal oo daafac uu ka dhaawacmay, Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Tottenham iyo Liverpool. waxayna laacibkaasi u arkaan mustaqbal mid looga faa'iideysan karo mustaqbalkiisa sanadaha soo socda. dadka qaarkii waxay ku tilmaamaan Van Dijk cusub ee qaaradda Yurub. lacagta lagu heli karo waxay u dhaxaysaa ilaa iyo 60 ilaa iyo 70 milyan oo lacagta Euro ah. kooxda ilaa haatan dalabka rasmiga ka geysay waxaa la leeyahay waa kooxda Arsenal. markaad eegto laacibkani Upamecano heer ciyaareedkiisa waxaa muuqanaysa in saxaafadda ay dulmisay, warbaahinta ma boonboonayso. shakhsiyan isaga waa laacib aan jeclayn inuu si weyn uga soo hormuuqdo saxaafadda iyo weliba baraha bulshada. waana midda keentay in laacibkani si weyn aan loo aqoonsan islamarkaana kooxo badan aysan xilli hore raadinba. daafacani waxa uu ku wacan yahay kubad kala jaridda oo weeraryahanada si saxa ayuu kubadda uga qaataa iyadoo wax qalada aanu sameyneyn. sidoo kale wuxuu ku wacan yahay in goosha kooxdiisa uu ka fogeeyo kubadaha. waana mid ka mid a waxyaabaha koox waliba ay kaga taamayso daafaca. sidoo kale dhowr shaqo ayuu qabtaa laacibkan. ma aaminaysa xitaa weerarka ayuu caawiya oo afka hore ayuu usoo dhaqaaqaa. baasaskiisana waa kuwo wax ku ool ah oo qalad inta badan kama dhacaan. sidoo kale weerarkan waa uu abuuraa. isagoo daafaca jooga ayuu sameynayaa inuu bilaabo abuurista dhanka weerarka oo kubaddana afka hore ayuu keenaya. waa hub koox waliba ama tababaro waliba uu ku taamayo. waxyaabaha kale ee laacibkan uu ku wacan yahay waxay tahay laacibka kasoo horjeeda waa uu ka daba wareegtaa, kama haro, oo laacib ilaaladiisa iyo foojignaantiisu ay tahay mid fog waaye. daafacani lagu magacaabo Upamecano mustaqbal wacan ayuu leeyahay marka la eego hanaan ciyaareedkiisa. jir ahaan laacibkani waa uu xoogan yahay, iyadoo sidaas ay tahay haddana degdegsiime ayuu leeyahay oo orod ayuu leeyahay. kubaddana si sahal ah loogama qaato. dabcan kooxdii hesha laacibkani nasiib ayay leedahay aan dhihi karnaa. waa laacib aan si sahal aan lagu dhaafi karin islamarkaana foojigan. guud ahaan waxyaabaha gaarka aan ka calaamadeeyey laacibkan haatan mashquulinayo suuqa kala iibsiga ee lagu magacaabo Upamecano waa iga inta. haddii ay tahay markii kugu horeysay fadlan subscribe saar channelkan, la wadaag asxaabtaada oo rukumo gambaleelka iyo weliba la sii wadaag asxaabtaada. dabcan qaybta commentigana ka qayb qaado. laacibkan Upamecano hanaan ciyaareedkiisa calaamadaha aan ka sheegay markaad eegto dabcan waxaan u aqoonsan karaa inuu yahay Van